waxaan codsanaynaa in eedeysana Sayid Cali Macalin Daawud ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumad Luul Cabdicasiis oo uu nolosha ku gubay maxkamaddu waa maasida arrintaas oo muujinaysa in eedeysanuhu uu si kas ah u dilay marxuumadda ugu dambeyntii waxa uu sheegay eedeysanuhu markii la weydiiyey 2 jeer oo kala duwan habka uu u gubatay labada jeer waxa uu kala sheegay mar wuxuu sheegay inuu qolka ugu galay gudaha oo qolka oo aad u gubanayo intuu gudaha u galay uu soo jiiday ilaa uu deerka keenana uu soo jiiday ayuu sheegay mar labaad la weydiiyay su'aashaasna wuxuu ku jawaabay in uu gacanta soo qabtay iyadoo oo soconaysa oo lugeynaysa uu soo kaxeeyay isla markaana uu deerka keenay sidaana ku fariisiyay arrintaas waxay muujinaysaa iska horimaadka eedeysanuhu in uusan waxba badbaadin bal uu ku talagalay inuu ku dilo meeshana ku caburiyo qolka yar ee stoorka ah waxyaabaha kamid ah wax kamid ah qolka yar ee stoorka ah wuxuu uga bilaabay haddii uusan doonayn inuu gubo marxuumadda waxba kama jiraan arrintaas ku doodaayo waxa uu sheegay inuusan waxba kala ogeyn markii uu galayay guriga soo galay sidalka soo qaadanay haddana wuxuu sheegay markii qolka jiifka galay inuu baarbaaranayo ay dhikaaradiisa iyo dukumeentigiisa muhiimka u ah uu gudoomiye maxkamadda sharafta leh haddii uu rabay inuu badbaadiyo wuxuu ugu badbaadin waayay gaarigiisii maadaama uu diyaar ku ahaa banaanka faafka hore ee geerashka sidaan hore u sheegnayna gurigu gashan jiray gaariga habeenka ma gashan in eedeysanaha markii uu saa u soo baxayba ay ehelada gabadhu ama marxuumaddu ay ku soo yaaceen oo ay dhaheen qabta ehelada marxuumaddu ma waxay ogaayeen in uu Sayid Cali dili doono gabadhooda oo waxay ugu diyaarsanayeen afaafka hore ee guriga waa su'aal la isweydiin karo hase yeeshee haddiiba ay jiraan oo ay sidaa uga naxayaan oo ay gaarsiisan tahay heerka caadifadeed ee dadka uu sheegay ay u qabaan marxuumadda maxay u badbaadin waayeen oo u badbaadiyeen dad deriska ah soo dadka uu sheegayo oo caadifadooda ay gaarsiisan tahay ama heerka ay la qiiroonayaan ay gaarsiisan tahay inay asaga baacsadaan ama ay weeraraan soo ma ahayn inay badbaadiyaan marxuumadda oo ay gaari ku qaadaan ama ay wax ku qaadaan oo isbitaal geeyaan marxuumadda waxa qaaday sidii maxkamadda horteeda aan keenay dadkii deriska ahaa oo ay caawinayeen dad meesha joogay sidaana isbitaal loo geeyay markaa kadibna loo gudbay eheladii marxuumadda haddiiba ay dadkaasi jiraan maxay Sayid Cali uga hareen bacsanayay waxaan ognahay haddii uu xataa gaari wato gaari bay qabsan karaan checkpointyada u diri karaan fariimo arrintaasi waxay ku tusinaysaa inay tahay inuusan ka run sheegayn dhacdada ka dhacday gurigaas ee uu eedeysanuhu xaqiiqada ka lexlexanayo waxay og yihiin xaqiiqo waxana ay sheegayaan inuu soo wacay Sayid Cali isla markaana isagoo laftirkiisuna uu sheegay isla markaana uu ku yiri arrintaas ha laga xalliyo si hoosaan u xalinaynaa mataqaanaa shaydaan baa ay qaatay arrintaas oo muujinaysa in eedeysanuhu uu si kas ah u dilay marxuumadda ugu dambeyntii maxkamadda sharafta leh ee racfaanka gobolka Banaadir maadaama uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yiri maadaama aanu cadaymaha halka tiir ee la isku hayay Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uu yiri walakum fil qisaasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaquun oo qofkii qof dila oo ku faral yeelay ama uu jideeyay in la dilo haddii aanay cafin walidam maadaama aysan walidamkuna cafinna waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa anoo ku hadlaya magaca xafiiska xiraliga guud ee qaranka isla markaana dacwadda ku matalaya in maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ay aydo xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ee lambarkiisu yahay 147/2024 baa xadiisuna tahay 100/2024 ee soo baxay 6 bishii 3 2024 kana soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir waxaan codsanaynaa in eedeysana Sayid Cali Macalin Daawud ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumad Luul Cabdicasiis oo uu nolosha ku gubay maxkamaddu waa maasida waxaana soo mudayn doontaa fadhiga loogu dhawaaqi doono go'aanka maxkamadda haddii la yiraahdo fadhigii maanta maxkamaddu ku dhageysatay difaaca eedeysanaha qayb ka mid ah
sidoo kalena ay dhageysatay dhaqaatiirta ka socday isbitaalka Rajab Tayyip Erdogan markaana dhageysatay gabagabada dhinacyadu ay soo gudbiyeen maantay intaas ayuu noogu yahay fadhiguna waa inoo xiran yahay kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet